magaalada Muqdisho waxaa ku nool dad ay irsaaqadu ka gashay qashin ay dad kale soo fogeeyeen. halkani waa goob qashin oo ku taal deegaan xebeedka Jasiira oo qiyaastii 21 kiiloomitir dhinaca koonfur galbeed uga beegan magaalada Muqdisho. maalin kasta inaan ka qaraabto oo watar iyo waxaas ka gurubsada. maxaa marka aad ku gooyaan waxa aad meeshan ka guratid 200 300 wixii ilaahay igsiyo nolosha marka qoyskaaga ma dabaraan alxamdulillah iskaga noolnahay waa iska babiidhaysana wixii ilaahay noo alfa waayahay caafimaad ahaan sixa ahaan meeshan meel wanaagsan ma hadda aniga waan daqiiqadaha aan joogay dhibaato weyn baan dareemayaa marka maxaa dareentaa aad maalin kasta qiiqaan iyo qashinkaan iyo wax dhibaato ah oo caafimaad ma dareentid dib dhaaf wixii ilaahay noo keena iska aaminsanaa waa iska soconaa alxamdulillah marka maalin kasta meeshan timaada marka waxyaaba akeeshid wax fiican kulay waa qashin oo maaragtay xataa caafimaad ahaan in faraha laga galmo fiican marka wax fiican ma ka heshaa ad wixii ilaahay iga sii marmaara iska helaa iska gataa mar ilaahay duu kuurooya dhar iyo waxaas la iska soo daadiya iska dhaqana afgooy iska geysana waa iskaga noolnaa alxamdulillah haween rag waaweyn iyo caruur ayaa xaruntan ku soo jarmaada subax walba kuwaasoo raadinaya waxyaabo qashinkan laga dhaxelo si ay u sii iibiyaan faa'iidada ay ku qabaan qashinkan marka laga yimaado waxaa jirta qatar ay u bareeraan maalin kasta maadaama ay mararka qaar halkan ka noqdaan iyaga oo dhaawacyo kala duwan qaba sida uu Shabeelle u sheegay Siidow oo ay gacantu dhala ka sartay marmar macnaha alxamdulillah iskiga noloshii ma ku filna nolol oo macnaha usbil aadana haasta ma ah kaas ko maalin soo yeelis maalin soo waynays wax meel loogu tooso male meesha waa qashin dhalooyin sakiin waxba maarag lagu soo turaa mararka qaar dhaawac baa hadda ku gaaray waa ka dhig hay hadda furdhiga ka soo daadaha ha qashinka waa dhala ay sarti tartiib marka waa hadda ma dhala ku jirta dhala ay jirta hay shaqo kale ma isleedahay oo ka muhiimsan waa jirtaa macnaha shaqo kale oo ka muhiimsan waa jirtaa oo nin macnaha oo inaa ku wada ku geeyo masku waxaynaay male daryeel la rabo shaqada lagu wado lagu tusiyo lagu geeyo la rabo ku geeyaa hadii tagtidna macnaha yaa ku yaqaan adi sidoo kale waxaa goobtan ka jirta hawo aad u wasaqaysan oo xitaa mararka qaar neefta nagu xireysay aniga iyo saaxiibadii shaqada ee ila socday sideedaba weliga nolosha laguma halbeegto ama laguma miisaamto dadka ka sareeya waxaa hoos loo fiiriyaa dadka ka hooseeya waayo taasi waxa ay suurtagal u noqonaysaa in aad ku qanacdid qayb ahaan waxa uu alla nolosha ku siiyay maalin walba halkan waxa u soo shaqo taga dad badan oo nolosha ka raadiya waxyaabo ay ka dhaxelaan qashinkan la iska soo fogeeyay caruur ku jirta da'dii korriimada iyo barbaarinta waxbarashada ayaa ka mid ah kuwa halkan ka faagta maalin kasta waxyaabaha dukaafadan la keeno waa ka qaraabnaa baabur alboran oo maado waxa iska yeelnaa waxyaabaha aad ka heshid maxaa ka mid ah qashinkan maar macdan baroosan markii idin ka gataa adiga maarta oo suuq weyn ka waran waxbarasho iyo kulli waa cagcadaada waxa waa dharkaaga xataa maaragtay waa nadaafad ahaan ma fiicna waxbarasho iyo wax meeshin miya waxbarasho maya qashinkaana ka qaraabnaa anaga maxaa dhacay dugsi iyo waxbarasho iyo ma weyde ay ma jeclaan lahayd inaad heshid maxaa u baaqaysaa dadka walaalaha ee wax haysta inay waxbarashana siiyaan oo noloshan qashinka ay idinka dhex saaraan noloshu waa dhib badan tahay marka aadanaysan daryeel fiican waxayna kuu kalifaysaa in aad gasho meel walba oo irsaaqadu kaa gasho maxamuud soo faysane Shabeelle TV Muqdisho.